إلهي مركو أركو إن أدون دياراتها oo isaga ku xiran oo toobad keenaya oo cabsanaya oo baqanaya markuu ku arko ilaahay waa ku tabantaabinaya waa ku toosinaya waa ku hagaajinaya markaas nabigu heer wuxuu sheegay qofka mu'minka ah ee toosnaa ee cibaadada iyo khayrka ku toosnaa geeridiisu markay soo dhawaato malag baa ilaahay samada uga soo diraa malagaasi maxaa amar lagu siinaya adoonkan waqtigiisii waa soo dhawaaday توسي مرك هدي وحي يرجرين حتى اسكو دبريد بالورانيا اسكو دبريد سامركو دينتو ددكو maxay oranayaan marka laga sheekeynay ninkaas in dhaweyd ba sanawaad kan dambaba safal awal buu tukan jiray mid kale wuxuu leeyahay Allah muxuu quraan akhrin jiray mid kale wuxuu leeyahay muxuu khayr ka shaqeyn jiray muxuu sidan ahaa waa adoon la hagaajiyay oo isku